السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شير لايك صالي هلا دافنا شير لايك سبسكرايب يسار هلا دافنا روح وانا أرغني بلا عشان داوضة من عشان بدونك بالغورة صار كحك هذلس meeshan kiisku ma haysatid waxa waaye dadkii la dulmiyay annaga nahay wiilkaadi dadkoo dilay oo annaga waxaan nahay qoyskii General Galaal marka waxaan ku sheegayaa wiilkaadi ilaahay waxaan ka baryaynaa ducada ilaahay waa naga aqbalay waxaan ilaahay ka baryaynay almost 2 years andayna ilaahay oo cadaalad ay nimankaas naga sii cadaalad ugu horeysa maanta ay dhacdo wiilkaadi la dilay ma fahamto shalay la dilay aniga la shalayna waa aamusnay xalay si fiican oo u saxday alxamdulillah salaatu shukri aan tukaday markaa maqlay dilka wiilkaadi aad iyo aad aan ugu farxabeen ku sheegay ma fahamto way nagu digteen intay aabahay dileen reexaji salaamina gurigeena laga qaateen galmudugti qabriga aabahayna saas ugu soo duuleen especially wiilkaada ma fahamtay tii ka soo raacdana waa la ogaay oo wiilal ayaan la oo meeshaas jooga waxaan ku leeyahay 10 waligiis ilooban u soo dhigay gacantiisa ka soo naafeeyay marka waxaan ku sheegay adeero waxa waa wiilkaada wixii ku dhacay wuxuu geystay waaye adigana waxa waaye wixii meesha wiilkaada maraysa ma fahamtay waa lagu dilayaa anigu kuma dhahayo laakiin ilaahay waxa waaye ciqaabtii oo waxaan ka wada aakhiro ciqaabtii aakhiro wiilkaada sugta aadna ku sugaysa ma fahamtay marka waxa waa wiilkaada killer oo ahay qofkii killer oo qof miskiin oo dilana waxa waaye faras uu noqonaya wiilkaada maanta General Galaal faraskiisii waa marka intaas rab inaan ku sheego salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أنا هذا وعن قدرة نكون دارا نكديرا نادو ديسو ودانتا نكون دارا نكديرا نادو ديسو ودانتا وحلو يروان لقد تكتر حتى وقود الراجرة أنا هذا وعن قدرة نكون دارا نكديرا نادو ديسو ودانتا نكون دارا نكديرا نادو ديسو ودانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ka hadlayaa walaalayaal fariintan waxay ku socotaa farxaan qaroole aabihiis oo video soo duubay oo wiilka geeridiisa video aad u murugo badan oo uga hadlayo geerida wiilkiisa ku timid marka ugu horeysa waan idin la wadaagayaa videogaas message-kan aan soo dirayana wuxuu ku socdaa farxaan qaroole aabihiis hadalay Allah naxariistay General Qaroole daawasho wacan إنا لله وإنا إليه راجعون ويلكي أن تريد تعالى فوت إلى كون حارسة نعم يردنا الجيش ما هاينا قيل ذلك اليميني لكن هل كأولنتي سوت أولنتي السبوة دورا مني يا بنتي هم دا سو ورابنا يا بنتي وشقينا يا إلهي سبحانه وتعالى أيوه بدي القبر يعني كان ورسمنا مود السواليات والحرير كلا لهنا وحن ورجينا إلهي سبحانه وقاسيه حنو مرينا إن هذا المدربين أنا كان إن ذكرنا نوقتين بأن إلهي سبحانه وتعالى ودسني إلهي يكو أبورتي وأكو أحسن منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بس كده بقى معنا هنا ولا ولا معنا هنا لكن ويركن حرام بوضع مقالدي أنا وحبرت مقالدي أنا اختار كبر مقالدي أنا ستار كبر مقالدي أنا سنين تري كبر مقالدي أنا جعلها dhexdeeda kaaga dhigto wiilkaa jeclaa waa qadar alla ay ku noqoto waxaan tacsi tiiraanya leh u tirayaa ehelka qaraabada iyo dhammaan marka fariintan waxay ku socotaa farxaan qaroole aabihiis oo videoga murugada leh ummadda Soomaaliyeed la wadaagay marka waxaan rabay adeer marka ugu horeysa waxaan ku sheegayaa aniga soo ka sheegaya aniga waxa la yiraahdaa Zainab Maxamed Nuur Galaal waxaan dhalay waxaan nahay qoyskii General Galaal marka ugu horeysa waxaan leeyahay kullu nafsi daaqatil mawt naf walba oo adduunka joogto Ilaahay wuxuu noo sheegay geerida inay dhadhaminayso
wixii wiilkaadii ku dhacayna waxa waaye waa wax geeridii maxaa qof walba geeri adduunkan way u joogtaa ma fahamti marka waqtigiisii aa dhammaaday marka laakiin naf walba oo adduunkan oo timaado waxay leedahay xisaabtan oo aakhira uga horeyso marka adeer waxaan kuu sheegayaa murugada maanta ku hayso waa dareemi karaa oo waxaan maxaa la yidhahdaa annaga dilkii aabahay uu nagu dhacay maxaa la markii General Galaal la dilay murugada ku hayso maalinkaas maxaa la murugadiina haysa ilaa hadda weli wayna haysaa oo cadaalad waa loo leeyahay kiiskii dilkii General Galaal looma furin marka waxaan kuu sheegayaa adeer saan hore kuugu sheegay annaga waxaan nahay qoyskii General Galaal oo wiilkaada Farxan Qaroole uu gacantiisa ku dilay General Galaal oo 84 sano jiro Hotel Afrique January 31st 2021 marka adeer waxaan kuu sheegayaa waxaa tiri hadda videogaada ku sheegtay waxaan u malaynayaa tiri wiilkayga inuuna dambi gelin maxaa la yidhaha ummadda Soomaaliyeedna dadkii inuu qeyr kale dhinac kale wax ka siiyo dadkii uu asaga xiriir kala lahay marka adeer waxaan kuu sheegayaa ma aqaano inaad god ku nooleed 5 sano oo wiilkaada intuu maxaa la dhahaa shabaab ahaay markuu dawladda ku soo biiray asagoo maxaa la dhahaa ciidanka booliiska Haramcad marka ilaa intaas wiilkaada inaadanba ka warqabin ay ila tahay aniga sidaad maanta u hadlayso waxaad iska dhigaysaa inuu wiilkaada nin aan dambi weligiis gelin inay tahay marka haddaadan ogeyn anaa kuu sheegayo wiilkaada falan dambiyeed aad iyo aad u weyn oo uu sameeyey wiilkaadina waxa loo dilay waxa waaye wixii Ikraan Tahliil Allah u naxariista loo dilay sakaaladii ay u dileen Fahad Yaasiin iyo Farmaajo iyo rejiimkooda kula najiis iyo kulli maxaa la gangiski oo Farmaajo rejiim sababtii loo dilay waxay Ikraan Tahliil Allah u naxariista waxay ogeed sensitive cases haysay iyo sirta fal dambiyeedka oo maxaa la dhahaa ay wax ka ogeed marka sidayna sirti u sii deynin ayaa loo dilay gabadha miskiinta ahayd Allah u naxariisto marka wiilkana waxa loo dilay maadaama uu wadankii dawladda cusub timaaday inuu sirtii bixiyo marka waxaan kuu sheegayaa waxaan u jeeday dad badan oo Soomaali oo qaylinaayo dhahayo dawladda Xasan Sheekh dishay Xasan Sheekh dawladdiisa dadku wax dila maaha ma fahamtay wiilkaadii waxa dilay waxa waaye shabaab dishaa lagu leeyahay laakiin waa la shaqoolay waa la dilay waxaana dilay waxa waa wixii horay dadku wax u dili jiray ma fahamtay waa dadkii afweyne rejiim oo waxa kuu sheegay aabahay la soo shaqeeyay isa sadaqo u soo weerareen sidaas Morgan iyo maxaa la dhahaa Cali Samatar iyo waxaas iyo ay rabeen inay qaarijiyaan marka waxa waaye waa wax looga bartay afweyne rejiim wixii la soo shaqeeyo way dilaan marka tacticadaas waxa isticmaalo waa dadkaas marka waxaadan u dhihin markii la soo isticmaalay adeer waxaan rabaa inaan kuu sheego wiilkaada waa ayga Farmaajo uu leeyahay ayga waxa lagu yaqaanaa meesha qabal yiraahdo aadaya oo soo maxaa la dhahaa soo ataagereynaya marka wiilkaada nin saas oo aqli badan ma ahayn marka waxa waa ayaan daro adigii dhamaayo dhalay inaad maanta meel la soo fariisato oo iska dhigto inuu wiilkaada wiil fiican ahaay oo ana oyso waxaan aniga meeshan u soo galay falcelinta uga sameynaa oo hintaadan la yaabay ma fahamtay yes aniga waan ooyay oo aniga marana emotional noqday aan naftirkay maxaa la yiraahdaa video soo duubay anigoo emotional waxaan u sameeyay saas waxay ahayd beeshaniya aabahay ka aamusta ma fahamtay videogaas waxaan ugu ooyay dilkii Farmaajo anaga geeri waan naqaanaa dhimasho waan naqaanaa waxa waa iimaan aan leenahay oo qadarka Ilaahay waan naqaanaa laakiin Ilaahay wuxuu kale intuu yiri cadaaladda wixii ku dulmiyay raadso oo maxaa la yiraahdaa cadaaladda laga siiyo sidaas darteedan waxaan rabnaa inaan maxaa la yiraahdaa aan sharciga hormarino sharciga horkeenno wixii gacan ku dhigliyaashii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaay especially Haramcad taliye xijaar oo wato iyo wiilkaada marka intaas kaliya kuma ekeen adeer wiilkaada waxa waaye wuxuu sameyn jiray dilalka qorsheysan oo waxa loo haystaa Cabdicasiis Afrika dilkiisii waxa loo haystaa dilal kale oo badan oo saldhigii booliiska waa bari oo taliyihii checkpointska oo lagu dilay maxaa la dhahaa December 20 maxaa la dhahaa May 27 Ramadaankii hore 2021 oo lagu dilay maxaa la yiraahdaa saldhiga booliiska intuu Farxan Qaroole isugu yeeray oo cadeynteedii rakabkeedii lahaayo waan soo gelinay faldambiyeedka oo Farxan Qaroole sameeyay oo waliba taliyahaas qaraxii uu ka badbaaday covid jira waagaas oo waxa la soo ogaaday inuu Farxan Qaroole ilaa isbitaalka u daba galay oo oxygen ka siiyay taliyahaas oo haddana bireeyay sida xayawaanka u bireeyay marka adeer waxaan ku sheegaa wiilkaada wuxuu ahaa fircoonkii Soomaaliya loo soo diray fircoonkii Nabi Muuse oo waagi Nabi Muuse share gareey share like subscribe hela dhaafina hadda soo gasha Soomaaliya hela dhaafina
انت كبعد بسم الله الرحمن الرحيم وين سلام يا ماكس joogtaan Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dalka iyo dibadda waan salaam meela joogtaan ba inta ka bacdi dhibaatooyin badan baa dalka ka dhacay ka socda waxaan maqlay maanta laba qarax waaweyn baa ka dhacay milad weyn oo dadka ku dhamaaday subxaanallah waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun mar waxa sida tan maaha أنا waxaan baa ka dawladda wax ka mashaakilkan wada dawladdan inta qabsatay wadanka khalkhal baa galay khalkhal iyaga laftigooda la shaqeeya qolada marka xasan sheekh maxamuud hadduu isagu nin aanu hayn qolada aan ka mid ahayn xilka muxuu ka qaadi waayay mahad salaad wax badan baa loo soo jeediyey wax badan baa loo sheegay waxyaabo badan baa la arkay maxay tahay sababta uu uga qaadi waayay xilka haddaan isagu la shaqeynay anigu waxaan arkaa isaga la shaqeeya haddaan la shaqeyn xilka ka qaado hal arko soo ka qaado isaga u fududeynaya mashaakilkan isaga fududeynaya inkasta oo bay dhici jireen laakiin imika iyakiiba imika say dhacay soo socota xaalku waa qasan yahay ilaahay u sahlo aan leenahay ummadda Soomaaliyeed ku dhamaatay beledweyne nooc walba nooc kastaba cid walba waxa uu isu dhigatiraya xasan sheekh waan la yaabsana cid alla cidii lagu sheego inuu ka qaado xilka way hadee hadduu daacad yahay isagoo laftiisu aan la soconin wuxuu ahaa inuu ka qaado waxaan aragnaa inuu iska dhigatirayo tusaalayaal badan baa imika la hayaa cadeymo badan baa la hayaa horena waa tii loo sheegay la ogaa horuu guddiga fahdiyaasi inoogu sheegay iminkana waxyaabo badan baa muuqda isagoo haddaan la shaqeyn qolada wada shaqeyn la lahayn car waa kaas xilka ka qaado mahad salaad car xilka ka qaado siday ku socoto imika wallahi arrin xun weeye si xun weeye say ku socoto dadkan islaameed ilaahay bay leeyihiin mashaakilo waaweyn baa dhacay welibana socda haddaanay dawladdani ka dambeyn mashaakilada tani wax kan socda oo loo fududeynaynin way dhawo waataad ogeedin wax ka dhacay way dhawo markay gacanta kaga qabatay waa kaa qaraxdii ka joogsadeen dawladda ma jiraan meesha iska ilaaliya isjir hala is ilaaliyo waxaynu ognahay koonfur galbeed inay Itoobiya imanka joogto qaraxii iyo wixii dabrihii qaski lagu bilaabay iyo mashaakilkii waa kuwa ka yaraaday dadkan dad aynu micnahooda fahmaynin maaha waa dad meel kasta ku jira meel walba waa ku jira cid kastaba waa ku jira laakiin inta la bartilmaameed la sheegay oo la caddeeyay inay yihiin dee waa in xilka laga qaadaa meesha laga fogeeyaa waa in laga fogeeyaa meesha xasan sheekh waxaan arkaa anigu isagu laftiisu la socdo oo wada shaqeyn la leeyahay haddaan la lahayn xilku ka qaadi lahaa si kastaba waa loogu sheegay welina xilka kama qaadin